السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحر فاتوش فاميلي سودا وهذا وولاشين فتوش جناك دعوني سنة وفاتوش فاميلي أصحابته ما أنت وحيابها أبديت كأنه واي وحيابها أبديت كأنه وجهل الدونا وحكم إذا جالتك سكرت معلومها كمان هذلين والدين بدن بيسوي ديسي وأيكو ويدينا قاركود والدين ويدينا شو مرة وبينقصوا بيرن بقى waxay taageen lacagti maxay igu soo dhici weysay la ayaantan lacag ima soo dhicin Jaltex credit-ki futuushay Jaltex credit-ki xaq u maraya in la bilaabo ma laga yaaba hawshu say tahay marka taas baan rabaa maanta update ina in ka siiyo sidoo kale waxyaabaha ka socda adduunka iyo coronavirus oo magac kale la soo baxay oo Dr. Fauci waa dhakhtarka u qaabilsan dawladda xagga cudurrada وقابلسن coronavirus White House kala shaqeynay oo warbixin cusub soo saaray muxuu yahay hada umada corona in laga baxay la isku soo noqday soo dhawaada barnaamijka channelka waa channelkiina subscribe saara gambaleelka furta asxaabta nagu soo biiriya hadaad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe taana la ag marin channelka waxa rabnaa inuu kordho oo mid community-ga u shaqeeyo oo noqdo hadii ilaahay mu update-yada iyo warbixinada iyo wixii soo saaciidaya iyo wixii dadku dhagta u taagayaan in ka hadlo insha Allah soo dhawaada marka assalaamu calaykum ku soo dhawaada Fatush Family Online Store halkaas oo aad ka heli kartid daahiye aad u qurux badan casriga ugu dambeeyay kala aad u kala duwan sidoo kale waxaan ku hayaa go'yaashii sariiraha kuwa miiska la saaray alaab badan fadlan hadda xiiseynaysa daahidaas iyo alaabtaas igala soo xiriir Snapchat-ka ama taleefanka shaashada ku qoran shipping waan sameeyaa United States hadii aad ku nooshahay hadii aan galno coronavirus ka Dr. Fauci waa dhakhtarka White House-ka u qaabilsan xanuunada faafa iyo cudurrada coronavirus kula shaqeynaya hadda Dr. Fauci baa okay waxa uu ka digay oo Amerikaanku uga digay dawaanaka iyo inta kale ku nool in ay ku noqon karno isku daraya Fatush lockdown waqtiyada guryaha la fariisan jiray ilaahay nagu ma celiyo mana aan toogin waxa jirta la isku diiday familka adig kaliya soco la dhihi jiray kaliga la kala carari jiray dadka albaabada laga furi jirin in lockdown hadii xaaladdu yiri sida ay ku sii socoto in lockdown lagu noqon doono sababtu yiri maxay laba waay Europe ayaa xanuunka ku socda waa B12 waa coronavirus ka cusub maalinba magac buu la baxaa coronavirus COVID-19 ka aan garanayna ayaa 9 magac isku bedelay magacyo badan buu la baxaa Omicron hablo variant waxaas dhan buu soo gudba hadda wuxuu marayaa xarfihii buu aaday B12 buu ka soo bilaabay ayaa wuxuu aad farabaan ugu hayaa UK Europe qaybo kamid ah caseska waxa ay bay u kacsan yihiin cararkaas buu ku jiraan China wad gobollo buu lockdown galiyay because xanuunkaas dartiisa markii sidaas la arko asla xanuunkaas caseskiisa United States kor bay u kaceen adduunku hadda waxa u moodaa inuu Russia iyo Ukraine ku mashquulsan yahay laakiin coronavirusna dadku ku mashquulsan yahay marka wuxuu taagay hadii la calam wuxuu uga digaa warningkaas wuxuu u siinayaa in aan la dhihinin xanuunkii uu dhamaaday janta fagax aan la dhigin maskiga la iska xirnaado iska jirta dadka aan la kulmaysid talaalka hadaada qaadan aan la istalaalo because dadka markii la yiraahdo janta fagax qof kasta wuxuu rabo sameeyaa xulay corona waa la hilmaamo laakiin hadii caseska kor u kacaan waxa for sure ah iyadoo la isweydiinaynin in lockdown-ka lagu noqonayo oo lockdown-ki la isku celinayo marka sidaas uga digay adiguna waad ku qasbantaa inaad ogaataa dad ku xirantaa Fatush Family la hadhow war Fatush corona cusub xaguu ka imaaday ma aad nooga digin sidoo kale Biden ayaa waxa uu u ambabaxayaa la yiri bisha 20keeda summit ka dhacaya Brussels Belgium ka dhacaya waa neetoda kulanka ay kulmaan ee sanadlaha ayuu u kictimaya waa 24 March 24 buu baxaya sababta looga hadlay bixitaankiisa daawul baa laga hadli jiray waxay tahay madax kamid ah Europe ayaa waxay soo booqatay tagtay Kiev caasimada Ukraine ee dagaalku ka socdo
وصاب بقدين أيقو تصيان دور مدح إن أي تاجرسين yihiin Ukraine lecturer كانوا سهر كذا دقال كلها وكيف وعاصمة الدقيقين يتجن سيرنا بدنا ويبقى بحين يوروب بحين مركا وحال الإسلام نحمري إن مدحوين بايدن مركو إمادة براسلس أو إمام دونه كيف أصاب عندهم سو ولكل مو سلسكي ونتص إنه للتغيير مركا وحصاها هذا الشيء هذلي مدحت دتك وهلا especially حق دتك أفضلية أيها هذلين وجبر بعملين مدو حق وشرطة يعني وجه هذا الشيء because مدح كست يعني دولت كست بقف بقول ومتلا أفضلية سفارد ده حاجة أفضلية مركا أنتي هذا الشيء روح تروح على الإسلام نحمريه وحبك متشران CNN وهذا الشيء وهرنتي وعيتري مدحوين بايدن ما بقرا كيف منا لكل ما يسلسكي تسلسكي هذو ما هذا مالكراها لكن أيكو حكى هذا كيف عاصمة الجو إن لو قلت والصباط لا موجي إلا لترو مركب حال الشاعية إن مدحوين بايدن وسن كيف تجينين سببته جرت معقول بما هنيدا ودقال ميل وكسعد ميل ودقال كسعد مدحوينها يونايتد ستيتس ما آذيو مركب لو شاعية وحال إسكا سمر يوكريني مدحوين بايدن ما صعدوا ما تقول ترى ولا لا شقينا يا دقال كود لكن ما بقنا يعني سيد مدحدي كله ويني ما تمو صباق الدار بايدن because حرده وحرد دقال مدحوينه لو ما آمنوا مركب وعادية كل النت تداس meeting كده summit وعادية ونكسر نقنية ما عادية لليوكرين سيدا كره هدي أنو سودا دعنو child tax credit ديمقراطية واتي دعتي ديسمبر كو أكيد جنوري على قاعد فبراير على قاعد مارس بشي صدحات dadka qaarkood waxay u qaateen waxay dheen no more child tax credit dama jirtay dhaxda iska xirta qaarna waxay futuusheysaan saas ugu fiirinaynay channelkaaga liibaana daaray child tax credit waa laga hadlayaa waxay ka hadlayaan dimuqraadiga weygi ama nuuci ay child tax credit u bilaabi lahaayeen waa tuu Joe Manchin isku dhajiyay la seexday package dhan oo child tax credit ku jiray laakiin hadda waa cusub yaa sheekadu waxay ku cusub tahay dimuqraadiga ayada horta de waqtigii lagu jiray sicir bararka oo ilmihii yaryaraay waag hore child tax credit la siiyay in loo bilaabo laga wada hadlayo maciishada korortii wax kasta ayaa haddana dimuqraadiga waxa u sii dheer in midterm election ay ku soo socoto in doorashadii la dooranayo senators ee doorasho u istaagayeen inay ku soo socoto midda hadda ka hadlayaan waxay tahay waxay dhaheen senatka ka soo qaad nin dimuqraadi nin republican ba madaxa isla galay yani senator oo labadaba u rangareeyaan kanaan ka qaada ana ka qaad senator dimuqraadi intaad istaagtid dadka si ugu sharaxi doontaa in intaasoo ilmood child tax credit gaajada ka bixisay inaad bilaabi weysiin haddaad dimuqraadi tihiin haddana aad la soo taagan tahay ii codee afkuu ku hadlayaa baa lagu dhaho qofkaas yacni case ama case maba meegarayn karo yacni maba dhihi kartid waxaanan qabanayaaba so all dimuqraadi hadda taas baa haysata kulligood all doorashada waxay uga baqayaan in laga qaato mid intuu soo istaagay child tax credit ka hadli karo ma jirto because child tax credit family baa qaadanaya child tax credit ka dadkii qaadanaya baa dadkaana inay cod weydiistaan ay taa u codeynayaan marka waxay tahay familku hadhow oo sideen kugu aaminaa ama sideed rabtaa inaad aan kugu aamino aan ku codeeyo marka waxay taagin hadda waxay ka hadlayaan before midterm ka child tax credit sida lagu bilaabi lahaa nooc lagu bilaabi lahaa why because we're 50-50 split so everybody waa inay haystaan all 50 sanadka waa inay haystaan xataa hadday rabaan inay pass gareeyaan laakiin Joe Manchin waa la kari laayay wuxuu taageen 10 sano lacagteed isku keen dara iga daaya sheekadan halka sano waan runtii wuxuu taageen child tax credit hal sano intaad bilowdi oo ilmo yaryar siis ma dhahaysi waa joojinaa marka 10 sano lacagteed waa inaan ku dhufataa si aan u ogaano deynta wadanka inta ay ku darayso saas la isku haystaa marka la soco Fatush family
child tax credit haddii dee dimuqraadiga ay rabaan xilalka inay sii haystaan waxaa la child tax credit waa inay bilaabaan number 1 number 2 waa inay ka qabtaan wax inflationka sicir bararka meaning stimulus check inay bixiyaan oo dadka stimulus check bixiyaan labadaas haday sameeyaan waxa la fikan karaa haday sameyn waayaan waxa waaye qashinka lagu wada darayaa ee ka dhan marka stay tuned insha Allah aniga baa idin soo gudbin doona wixii xog ah iyo waxa ay ka sameeyeen child tax credit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.